wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliland Dr. Maxamed Awdaahir oo maanta socdaal ku yimid magaalada Gabiley ayaa waxa uu kulan la qaatay maayarka caasimadda gobolka Gabiley Maxamed Amiin Cumar Cabdi barasaabka xigeenka Gabiley ahna kusimaha barasaabka gobolka Gabiley Mujaahid Cali Cabdi Cabdilaahi iyo golaha deegaanka Gabiley oo ay ka wada hadleen abaaro ka jira deegaano ka tirsan gobolka Gabiley taasi oo saameyn adag ku yeelatay beeraleyda iyo xoolo dhaqatada ku dhaqan deegaanada hoos yimaada gobolka Gabiley wasiirka iyo mas'uuliyiintaasi oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa xaway beeraleyda abaarteen waxay lahayd beeraleyda abaarteen ku dishaa sanadkan hadii haruurku soo bixi waayo ama wax dalagyada ay beerana waxa way sanadkii dambe wixii la cunayay daba jiro ilaa sanadka dambe kula soconaysa cid ka hadashay oo roob yari baa dadka kale maraya ilaa galbeedkii roobka ka yar halkan waxa jira wasaaraddu waxay leedahay baal qiyaasaha roobka si walba ay tadaala waxa weeye dhulku ugu roobka badan Nigeria ayaa ugu roob yar sanadka adigu baa soo aragtay roobkii raxmadii Ilaahay oo dib u dhacday daraadeed xilligan oo kale garoolay markii la soo marayo alaha soo goosan jiray runtii sida gudoomiyuhuba ka dhawaajiyay guud ahaan xaaladda degmada iyo gobolka way wanaagsan yihiin waxoogaa mushkilad roobka dib nooga dhacay oo runtii dib keenay mooyaane degmooyin iyo tuulooyin aan soo marnay runtii way jireen oo aan ka warhayno xaaladooda runtii alxamdulillah inkastoo labadan wiiga u dambeeyay roobku meelaha qaar ku daayay weli si aanu baas soo bixin haddana inaynu ilaahay u toobad keeno oo aynu raxmadda weydiisano inuu dadkeenii u shubo inoo shubo dhinaca kalena wasiirka wasaaradda waxbarashada Professor Faarax Cilmi Goodoole oo ay weheliyaan saraakiil ka tirsan wasaaradda waxbarashada Soomaaliland oo iyaguna socdaal ku yimid magaalada Gabiley ayaa kormeer ku soo maray ardayda u fadhiisatay imtixaanka shahaadiga ah ee ku galaya dugsiyada kala duwan ee gobolka Gabiley waxaana halkaasi warbixin ku siiyay maamulka gobolka iyo ka degmada ee Gabiley maalintii xadii waddanka guud ahaan si fiican uga bilowday guud ahaan gobolkan si fiican bay uga socdaan kullay tirada ka qayb gashay waa alxamdulillah waa haysaa waa 1487 buu noo sheegay waxaan isleenahay gobollo badan oo kuwa ansaxsana waad ka arday badantii runtii imtixaanadu waxay marayaan maalintii saddexaad waxa u socdaan si fiican oo habsami leh magaalada Gabiley waxa lagu gelayaa laba goobood oo goobna ay ku gelayaan dugsiga sare goobna dugsigii standardka ardayda runtii iyo macallimiintuba si wanaagsan bay u wadaan maamulka heer gobol ee waxbarashada iyo macallimiinta kalaba runtii waxa weeye har iyo habeenba kormeer joogta guud ahaan gobolka way ku hayaan Mukhtaar Nuux Ibraahim Home Cable TV gobolka Gabiley